عليكم ورحمة الله وبركاته. تليفونك هذا ينعو واحد شيء غير ما يقارن موجي. ورمي ورتو هاي السلامي. سفي عن وإيم قشنا مرينا. لما أنتي وايد سلامي ميلو البوجوكتان أرين لياب له أو عن سومالي ما أنت كمغلي أيا عجيب إلى النقطة وحنا جعل استي إن إذن لو داقو أرين تاس مركرير مقدشو أما دمان سوماليا هيجن مكتين كم ديران أيو وأرين دق أو آد يعجب السواي marka waan filayaa inay heegan ku jirtiin barnaamijkan maanta aan ka hadlayo wuxuu ka duwan yahay kuwii hore waxa uu boqolkiiba boqol kaga duwan yahay siyaasadda ma ka hadli rabo hadda laakiin wax kale oo iga yaabiyay oo aan muqdisho maanta ka maqlay ayaa rabaa inaan laba eray ka iraahdo haddaad Soomaaliya ku nooshahayna videogan inaad share gareysid waa ku qasban tahay haddaad Soomaaliya joogtid waaye waxaan nooga baratay inaan mar walba siyaasad ka hadalno waxaad nooga baratay mar walba inaan wax falanqeyno maanta ma aha siyaasad laakiin waa caafimaadka dalkeena iyo ganacsiga dalkeena wax ku saabsan aan rabaa in halkan ka sheego aad ugu maasantihiin inaad heegan tihiin waan furo karaan filayaa haddii aad muqdisho iyo gobolada dalka joogtid muuqaalkan wuxuu kugu yahay qasab inaad share gareyso for no secure reason why tan sabab kale ma jirto waa wax adiga ku roon oo aan rabo inaan falanqeeyo 5 minutes waana arin muhiim u ah bulshada ku dhaqan Soomaaliya ma rabna inaan bulshada mar walba la wadaagno waxyaabaha siyaasadda ay ku wareereen ay ku dabaqeen ay meel siyaasadda u socoto la garan laayeen nin walba madaxweynaha is amaanayo ana wax la qabtay ilaahay uuntane hadda nooma muuqato laakiin waxaan rabaa maanta ama cawada inaan diiradda saaro wax ku saabsan ganacsi Soomaaliya ku soo kordhay oo cajiib ah oo mas'uulna naga saaray yahay oo na weydiinaya xataa aqra maadaama dad badan na daawadaan waa inaan dadka wax u faa'iideyno mararka qaar waa inaan dadka wax u faa'iideyno meel walba joogtiin oo aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay salaan qiimo leh iga gudoomo meel walba joogtaan haddaad Soomaaliya joogto videogan si toos ah ayuu ku saameynayaa marka waana ka duwan yahay siyaasad caadiyan markii baarlamaanka 500 soo buuxsanto ayaan bilawnaa si dadka dhow maxaa ka hadlaysay iyo maxaa laga hadlayay iyo aad ii dhibaysaa waan ku faraxsanahay ag joogiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan filayaa inaan kooram ka buuxsamo kale waan filayaa waa bilaabo karnaa haddii aad Soomaaliya ku sugan tahay muuqaalkan wuxuu ku yahay mid ku iftiiminaya wax aadan ogeyn adiga sidaas darteed ayaan u soo galay anigoo live hatta diyaar u ahayn adiga dartaa ayaan u soo galay marka haddaa siyaasad iga barato maanta iga raali ahaaw wax bulshada u faa'iido ah ayaan rabaa inaan halkan ka dhawaajiyo let's start waxa jirtay arin la yaab leh oo ku saabsan ganacsada Soomaalida oo maanta aan maqlay oo la cajiibay oo la makaagay oo la yaabay oo madax aan qabsado maxay tahay hadaba arinta ganacsata Soomaaliyeed ayaa hadda ila soo xiriiray oo aan bar garanayo barigii aan Muqdisho ka shaqeyn jiray suuqa daawada مساعدك داود تقنان أنا جو واحد مدة سو شقيي نعمان فرمشي وكويا لا سوق بكارها دتك Soomaaliya joogo ayaa rabaa in si nadiif ah ay u fahmaan arintan daawada iyo dhaqaatiirta sida wax u qoraan iyo sida loo kala ganacsada daawada laftirkeeda waa idin sheega laakiin harda maanta waxay taagan tahay daawo ma aha
ganacsata Soomaaliyeed si fiican ula soco sheekadeeda ma rabo inaan ku soo celiyo waa ka gudbayaa ganacsata Soomaaliyeed oo la soo degta sokorta haddaad iga barato siyaasadda iga raali ahaaw haddaba tan Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed aan ka dhalanay ayay qusaysaa waana wax faa'iido u leh dabcan ganacsata Soomaaliyeed oo aan saaxiib nahay muddo 10 sano ah ayaa sokor la soo degay qisada haddaba dhageysta sokortii markabkii ay saarneed waxay u kaxeeyeen dhanka iyo dekada Mombasa ee dalka Kenya in dhawaalo waxaa jirta sokor sharci darro ah oo Soomaaliya uga imaanaysa marka canshuurta sokorta waa la kordhiyay sharciga Kenya iyagoo war u haynin ayay tageen Mombasa waa la fiirshay sokorta waxa laga fiirshaa ilaa Soomaaliya xataa way leedahay dawladda Soomaaliya wayna lahayd bari 8 sano ugu dambeysay Kenya iska daawaaba dawlad horumartay sokorta waxa la saaraa machine tayadeeda iyo heerkeeda intuu la egyahay ma dhacday sun ma ku jirta ma filtreysan tahay maxaa lagu soo daray ma sugunta waa lagu guuleystay taa inay marto kadibna waxa la yiraahdaa maadaama ganacsata Soomaaliyeed leedahay canshuurta double looga dhigaa canshuurta lagu qaaliyay because dalka anaga ma nihin Kenyaanku canshuurta sokorta ku dareen miyaadan la socon la ganacsato in canshuurta lagu daro sokorta waxay dheen maya haddaba hadda ratiin in Nairobi iyo Mombasa iyo Eldoret iyo dhulka kala duwan magaalooyin kala duwan ee Kenya ay u gudubto waa in canshuurta double laga dhigo way xanaaqeen qabweyni kana Soomaali waa ku aqaanay way xanaaqeen way la soo laabteen dekada Muqdisho ayay kula soo laabteen maxaa dhaca kadib markab sonkor waday oo Hormuud shirkadda isgaarsiinta Hormuud sokorta waxay u kala baxdaa gaduud iyo cadaan hadda Soomaaliya joogto ku anfaca videogan sokorti cadeed ayay wateen kuwan waana sokor caalami ah marka sokorta cadda Yurub sokorta cadda laga isticmaalaa sokorta gaduudan lama isticmaalo sideedaba laakiin Soomaaliya is normal gaduud iyo cadaan labadaba waa la isticmaalaa marka intaas marayso markabka markay Soomaaliya ku soo ceshteen oo dekadii Soomaaliya Muqdisho lagu soo celiyay Hormuud waa taqaanaa waxay dhaheen isku dayeen in laaluush ay siiyaan qoliyaha dekada joogo laakiin way ku guul dareysteen laaluushkina waa laga qaatay sokorta waxaa jirto sharci la mariyo sidaan ii sheegay mashiinka la mariyo inay sugunta tahay inay valsa tahay inay wax kala tahay hadda qoliyihii dekada Soomaaliya joogay wasiirka dekadaha hoos imaada dabcan imaarayaha dekada midkood ma garanaaye midku yahay way dhageysteen cabashada Hormuud kadibna waxay go'aansadeen iyagoo nidaam dawladeed ilaalinaya sa u fahmo oo ku amaanan yihiin ayay mashiin saareen sokorta haday okay tahay dhow dacwada ka baqeen in dacwada la isku imaado waa fasaxeen sokorta waliba inta kan Hormuud la dajinayay ayay dajisteen magaaladana ku fasaxeen marka intaas marayso sababta video u soo gala waxay tahay markay xaaladda intaas marayso Hormuud ma hakanin nimankan Hormuud liiraa ma hakadaan suuqay waxay geliyeen sokorta waa sokor dhacday la gadan sokortan waa sokor dhacday waa sokor ganacsatada Soomaaliyeed waligood la imaan jireen iyagoo hadda barnaamijkan ganacsiga ku soo biiranay waxayba taageen sokortan sokortii qaliijka waa anaga inta sokor kale imaanaa kale way dhacday ee yaa la iibsaneen teena la hal iibsado marka intaas marayso website badan ay geliyeen sokor dhacda Soomaaliya lagu qabta dhaha sokor dhacda saan lagu qabta dhaha idaacadiye lacag siiyeen haddaba kaalinteenu maxay tahay annaga ummadda Soomaaliyeed u hadalnaa u adeegnaa mar walbana siyaasad qasam ma inaan ka hadalno wixii dan ku jiro dadka Soomaaliyeed caafimaadkooda ku jiro wixii tuun ka galo waa inaan waadix u sheegnaa nimankan Hormuud la dhaho waa qooleysato waaye anu wada wax kale oo siyaasadda kuma gelinayo laakiin niman qooleysato ah oo ummadda Soomaaliyeed halkaas u istaaga waaye oo aan ku ogoleen inaa xaasho soo saaratid hal warqad ma soo saaran kartid adiga hal warqad ma keensan kartid tan hadaa keentid mid kale keenayaan war isgaarsiin kuma ogolo iska badaan nabad iyo arimaheeda ka baxee nimankan ganacsi kuma ogolo inaan noolaatid mar rabaan inay ay kaligood noolaanay rabaan haddaad Soomaali joogto oo maqashay sokorta cad waa dhacday iyo waa filin haddaanba kuu sii sheegaa waa been waa qaa'imiin Ilaahay ka furtay inaad warkaas dhageysanin oo aad ganacsiga sida u wadan jirteen isa u adeega jirteen suuqa been la soo gelino advertisement ayaga ay wataan iyo xayeysiiska ayaga ay wataan lacag ku bixiyeen ha dhageysan maxay Hormuud ku bilaabatay Hormuud maxay ku bilaabatay ma xasuustin barakaad ku bilaabatay in maanta ay horumar sameeyaan kaliya isgaarsiin kama sameeyeen xoolaha ummadda Islaameed waay war barfuun hadii la keenay mid Hormuud ku qorantay keenayaan war hadii bajaaj la keenay mid bajaaj ku qorantay keenayaan haddaba bajaaj suguntii birimo kala ma leeyahay bajaajka waxay ku leeyihiin
haddii 3,000 oo joogo 2,000 aan kaa siinayna ummadda Soomaaliyeed see u noolanayaan marka hormuud see rabtiin in lagu noolaado war miyaad isha bini aadanka iyo cuqubada alla ka baqeenaya carada ilaahay inay ku dhacdo ummadda Soomaaliyeed masaakiinta nimankiina caloosha waaweyn ee xafiisyada fadhiya miyaad u ogoleenaha igaraali ahaada nimankan hormuud la dhaho anti hormuud hadaa tahay adiga ha ka hadlin anaa ka hadlaayo laakiin muuqaalkan u sheergaree Soomaalida saaxiibada ah ee jooga dalka Soomaaliya iyo warkooda faalsada ah oo beenta ah ee rabaan in dadka Soomaaliyeed ay ku lugooyaan weligii ganacsi kama hadlin laakiin maanta waxaan uga hadlaa waan ka gubtay waan ka xumaaday waan ka qoomameeyay how they want inay Soomaaliya ganacsi ugu sii abuuraan war bajaajley intay ugu istaageen war ganacsatada Soomaaliyeed nooc kas isugu jirto intay ugu istaageen nimankan mar rabaan waji cara ilaahay kama baqaan waxan Kenya maalin walba ee u duqeynayso oo xarumaha Kenya loo duqay wallahi believe me waxa xarumaha Kenya maalin walba ee ugu duqeyso iyagu ma fahamsana I know ma dagaalamaan hub qaataan qorshooyin kale way isaga jiraan inta kuma sheegay barnaamij kale kaga sheekeen doona laakiin hadda mi isweydiin nation baa dalka ku taal telecom baa jubooyin ku taal lama duqeeye idinka maxaa dhaqaalihiina loo burburiyaa shaqaalihiina maxaa loo dilaa Kenyaanka iyo Etoobiyaanka iyo Ameerikaanka iyo adduunka dhan shaki muxuu idinkaga qabaa ituun ma taqaanaan mi isweydiiseen waan huba qaladkiin waa sixi doontiin laakiin hadaa aragto cuqubo kugu soo noqoto cuqubaa ku jirtaa cuqubada ku jirtidna waa masaakiinta aan warqad soo saari karin ku daba keenaysid waa masaakiinta bajaaj haday soo qaataan ka daba keenaysid waa masaakiinta haday xawaalad sameystaan ka daba keenaysid waa masaakiinta haday iPhone keensadaan iPhone kale keenaysiin idinka bis miyaa Soomaali ina ku noolaataan rabtaan idinka bis miyaa Ilaahay idin uuma ina ganacsi sameysataan idinka bis miyaa dadka ka xaquuq badan qofka wuxuu qiimo leeyahay marka ganacsiga qayb kamid uu leeyahay laakiin ana kullu wareegayo waa waxa cuqubada fiiri shilinka Soomaaliga xataa waa qiimo tireen shilinka Soomaaliga way qiimo tireen iyaga EVC keensaday maalin walba imtixaan lagu keenaa ama shabaab ha lagu imtixaamo dhahan EVC xira ama shabaab ha lagu imtixaamo hal dhaho mobilada network ka isticmaashin xira ama Mareykan ha lagu imtixaamo haduqeeyaan ama ciidankan jareerta diriskana la haduqeeyaan oo hadilaan way dadka kale loo beegsan way way telecom loo beegsan way way nation loo beegsan way laba arin mid way sababta adika ni la beegsado ni la duqeeyo laba arin mid way dadkana hormuud way ka baqaan I know laakiin anbu waa ka baqaa laakiin hadda runta waa muhiim marmarka qaar waxa iska dhimanay adoo run sheegin qadarta Ilaahay dad kugu timaado adoo run sheegin iska dhimanay walba xaroon qadarta maba horay sidee wax dadka Soomaaliyeed aysan sheegayn ay ka cabsadaan adigu ku dhiiro ku dhimo xataa waa garanaa aniga warnimayo waxa maalin walba ila duqeynaayo oo shaqaaliina loo dilaayo oo meel walba cuqubo idin kaga haysato idinka waaliya badii maxaa hormuud dadka ka duway shirkadaha wax kala ma aha ee ummadda Soomaaliyeed inta ugu istaagsantiin way carada ummadda Soomaaliyeed tii Ilaahay isku darsateen salaadna waa dukataan waa soontaan laakiin si kala cuqubo idin haysataa waxaan jeclaan lahaa sonkortaas hormuud aysan keensanin ee qeybaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliyeed ee keensadeen waa mid xalaal ah oo aan ku soo kornay oo weligan cuni jirnay oo waalidiinteena cunaan oo anaga soo cunnay ma hormuud oo hadda imaado ganacsi baratay miyaa sokorta qaar anaga way dhacdana leeda mid gaduudan oo walba mid gaduudan dhaco u dhow mid keensadeen gaduud ah ayaa hadee wax dhacdo taasaaba dhacdaba taasaan rabaa in shacabka Muqdisho jooga iyo kuwa gobolada dalka jooga inay isweersadaan ama ay sheergareeyaan muuqaalkan oo dad masaakiin oo waxa jira hadii la dhaho daawadan waa dhacday furdug orodka isdaayaan wax Soomaaliya yaalo oo aan bahooba inay san dhicin waa timirta burka iyo sokorta weligeena cuni jirnay weliga iska ilaali daawada kaliya daawada iska ilaali arimahan daawada iyo aniga xeel dheeraan ku dhinaca daawada iyo sida loo isticmaalo iyo suuqa sida la isaga saaro habeen kale aan ka hadlaa awadaas waxa iga raali ahaataa anoo siyaasad ka hadlaynin inaan u soo galay in hormuud ay suuqyada Muqdisho gelisay iyo ganacsad Soomaaliyeed qaar meediya lacag siisay oo ay leedahay sokorta cad way dhacday suuqa laga bixiyo nasiib wanaag annaga iyo rag kale Soomaaliyeed oo u istaagsan ina Soomaalida Muqdisho joogta iyo gobolada runta u sheegno oo dhahno hormuud waa tuugo waa qiyaanolayaal waa burcada ummadda Soomaaliyeed ka fogaada sokortiinana waa idin xalaale cuna waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dadku dheeraanayo arintan maadaama aan ka cudur daartay in siyaasad cawada aan san ka hadlaynin marka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo 2 sano
iyo hal maalin ayay dad dabaal yihiin oo ay u dabaaldegeen sanad guuradii labaad ee farmaajo. marka awada sokora usoo galay taasna habeen dambo ama habeen kale hadduu waqtigu ii saamaxo ayaan ka dhigan doonaa. raali ahaaw haddii aad ganacsi shaqo ku leeno cawada aan ku geliyey, laakiin burcadnimada hormuud waa loo baahnaa qof ka hadlo. nimankaas hormuud la leeyahay next step ammaanka Soomaaliya qaybta ay ku leeyihiin, falalka dalka ka dhaca qaybta ay ku leeyihiin, amniga guud ee dalka qaybta ee ruulka ay ka ciyaaraan, ganacsiga ruulka ay ka ciyaaraan. hadduu eeba saamaxo next time ayaan si faahfaahsan warqad diyaarsan idinkaga keeni doonaa. waxay is weydiiyaan oo idinkaga tagaa maxaa Kenyaan iyo Mareykan maalmo idin duqeeyaan wax uqubada ummadda Soomaaliya ka gashaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.